العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعد. وأنا هم بليين يا دلنيرada iskoolka matalaysay oo guusha wax kasta aan dagaal lagu bixinna waa lagu guuldareystaa. waxay tusaale yar u yihiin ardada waxbarashada oo kale qofku dadaalka uu sameeyo ama waxbarasho ha ahaato ama cayaar ha ahaato ama fankal ha ahaato ama wax rabtaan noqotay waxa qofku ku dadaalo miraheeda ayuu helaa. dhalinyaradaasi dhalinyaro ku badbaday jiray way ahaayeen iskoolkana laga soo dhex qabtay oo laga soo saaray fasalo kala gudbisan ay ka yimaadeen koobkiina way soo qaaday. waxay ku dayaaleen koobka inay qaadaan kala u gudubtid ama inaad sanadka ku hartid oo ku dhacday marka darajadaadii weeye mustaqbalkaagii weeye waa inaad dadaashaa. maanta laga bilaabo ardaydu waa inay bilaabaan inay dadaalaan sida gabanada yaryar ay u guuleysteen ama gabdhahaas intay tartan u galeen ay u guuleysteena qof kasta wixii uu xaqay kada marka qoraxda fadhiyo aniga waxa la igu yahay inaan jisaaisooyinka ardayda aan guddoonsiyo ee waa sameeyaa laakiin ogaada wixii lagu dadaalo in la gaaro ogaada. sidoo kale waxaa jirtay in jaalan ku khalday maahan aan jaala kala aan qaadan roosab iska daay farmaysan sacab iyo ixtiraam mudnayn. ujeedada dadka waxaan idin dardaarmayaa inaad dadaashaan daryeelida inaad ku dadaashaan daryeelida diintiin iyo dalkiina dadkiina duruustiina. waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa dhammaan inta ku abtirsata magaca iskuulka Imaam Nawawi. iskuul kaliya ardayda laga dhisa dhanka aqoonta meel walba waa laga dhisaa hadday noqoto kubadii hadday aqoon noqotaba. saa ogsoontiin 10 arday ama 10 balaayar waxay soo hogaamiyeen guul aan inaba caadi ahayn waxayna halgameen oo sharaftii iskuulkoodii way ilaaliyeen. qof walba iskuulka Imaam Nawawi jooga ama dhigta fasalka iskuulka Imaam Nawawi kamid ah waa waajib ka saaran inuu soo hogaamiyo guushaas kalena uu gaaro. taasna si gaar ah iyo hadda tan sida idin muuqato inuu yahay tababaraha inta aan ku gudi jiray ciyaarta 4 kooxood ee iskuulada kaasoo khibrad u leh inuu hogaamiyo kooxdan. waxaan amaan gaar mudan macalinkayga Cabdullaahi kaasoo kaga duwan macallimiinta kale inuu macallin. waxaan salaamayaa dhammaan dahweynta reer Nawawi. waxaan leeyahay jaalayaan iyo jawharadeyn baayoyin iyo booyaan hanadayaal iyo hoodooyin hawl kama daalayaan. bacda salaan waxaan u hambalyeeyaa dhammaan dhalinyarada maantay noo soo hoysay guusha. dhanka wiilasha 10 wiil oo noo soo hoyay maanta guusha sportiska iyo sidoo kale waxaan u hambalyeeyaa 3 gabdhood ayagoo noo soo hoyay guusha oo ah naadiga gabdhaha oo ayagoo u jeedinaya guusha maanta ay noo soo hoyeen. isku tali dabeetali ma tashadaha ii talin hadal toosan weeyaan haddaan saarku kula tegin kabihiisa kaan tolan adna yaana kuu talin tukuhuba dadkuu baray tartiib mayd la aastee ka dixraac qudhaanjada tacabkiyo wax kaysiga la tasho aboorkana tacliintiisa weydii inta loo tartami karo yaana tiisi kugu gabin tamartaada curintiyo tacabkaaga cududiyo taladaada fikirkiyo hal abuurka tarmiyaanay talax gabin ka tirboodhka ulashada tirtir quusta baqashada adbartaada ka hergeli halka ruusku togan yahay adbartaada ka hergeli الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه. أما بعد marka hore waan salaamayaa dhammaan ardayda qiimaha iyo qaayaha leh oo hortooda fadhida oo saaka u taagan inay u dabaaldegaan xaflad maamuuseedkan loo sameeyey xulka kubadda cagta Imaam Nawawi Secondary School. waxayna sidaa ku noqdeen hogaanka kubadda cagta degmada Garowe dhinaca iskuullada. aad baan ugu hambalyaanayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo. dhalinyarada 10 ah oo hortiina fadhida waxaana ugu horreeyey markii koowaadba diyaargarow la'aan laga baatiyey waayo koobka waxaa loo sheegay marka caawa oo kale uu furmiyey waxaan yidhi caawa waxaad kala galaysaan ciyaarta koowaad baa leedihiin. waa dareemi karaa tiim aan isku duubnayn tiim aan wada ciyaarin tiim aan isfahmin tiim la soo xuray aan horay tiim u ahayn awoodda
sidaas ayadoo ay jirto haddana waxay ka muujiyeen awoodooda ciideed ee uu leeyahay iskuulka Imaamu Nawawi way ka tarjumaysaa hadday ahaan lahayd dhinaca aqoonta iyo hadday ahaan lahayd dhinaca kubaddaba waxay ku soo guuleysteen marka iyagoo saddexdii iskuul oo kale oo tartamayay qaybtood ciyaartii koowaad waxay ku dhamaatay 7-1 ciyaartii labaad waxay ku dhameeyeen 10-3 ciyaartii saddexaadna waxay ku dhameeyeen 4-3 waxaan u malaynayaa shaqadaas cid kale oo qabsan kartay ma jirto aad baan uga hambalyeynaya